Ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya ayaa xalay wax yar kadib saqdi dhexe soo gabagabeeyay howlgal ay ka sameeyeen hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho kaas oo ay xalay fiidkii la wareegeen maleeshiya hubeysan oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 5 qof oo 2 ka mid ah ay rayid ahaayeen halka sidoo kalena la dilay 5 nin oo weerarkaasi ku qaaday hoteelka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inooga diyaariyey wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. ilaa 5 nin oo hubeysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka SYL ee ku dhow xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor 7 fiidnimo ee wakhtiga Muqdisho, waxaana la sheegay in 2 ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay, halka 3 kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa 1:00 habeenimo ee wakhtiga Muqdisho. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen 2 ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi, halka 3 qof oo shacab ayna ku geeriyoodeen, dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa 9 qof. dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa Allah u naxariistay garyaqaan Cabdulqaadir Sheekh Cumar Cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka ee Soomaaliya. Asad Daayow oo ah saxafi degan Muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayay markii uu weerarku bilowday. alxamdulilah meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay anagoo iska masaaxino oo si caadi xaaladeen lagu faraxsan yahay, dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan. mar waxaa bilaabay xabado aan caadi ahayn. marka hore waxaan isdhihaynay xabado caadi oo ciidanka in wax ka shakiyaan laga yaabaayo bal ukaadiyo adiga wixii way sii bateen. haddana dambooyin waxbaan sii maqnay, marka dadkii yaa kacay, marka aadaa loo kacay. dadkii waa garan kartaa dad dhalinyaro oo iska masaaxaysa oo maaragtay jawi qurux badan ku jiray. dadkiyaa marka qaar asiisan waayey, qaar khaylo iyo dad maaragtay isku darsamay. marka aniga waxba isma waalin, aniga tiim kale asxaab ay la socotay. meeshaan si nabad iskaga joogna oo ilaah baan iska baryeynay maadaama meesha wax la qaban karin oo qadar alle ay iska socdo aan ujeedno waxaan maanta gadaal noo arrin karin, hore arrin karin, meeshaan iskaga nagaadno. Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Oronjo oo ah afhayeenka dowladda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in ciidamada madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa booliisku ay si degdeg ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday. waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday. waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada ay markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in Al-Shabaab halkaas dadka ku go'doomiyaan ay ku qabsadaan. ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna ka soo saareen si nabadgelyaha hoteelka. waxaana halkaas ka bilowday baacsiga 3 dhagarqabe ka tirsan Al-Shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyada ay tusiyaan in Al-Shabaab ay xilligan qabsan karaan hoteelka. laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi hawsugnaata ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada booliiska oo la arkayay dhalinyaro aada u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka. waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xalay lagu guuleystay in 3 dhagarqabe 2 markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqabeyaasha Al-Shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd 1:35 daqiiqo ah. Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada Muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo. hase ahaatee weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka bedeshay xeeladihii adeegsan jirtay. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbedelka kooxda. waa runtaa oo waa qaab cusub oo aan looga baran kooxda Al-Shabaab weerarkii ay maanta maqribkii ka geysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka SYL. maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa la soo maraan wadooyinka magaalada Muqdisho, waxay la yimaadeen tactic cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga ay soo gaaraan ilaa iyo hoteelka ay kusoo gaaraan baabuur caadi ah
waxaana kaloo u fududeeyay sian isleeyahay inay hoteelka kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub. marka waa tactica cusub, waana in la tirakoobaa, islamarkaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska booliiska maaragtay loo sameeyo si looga feejignaado weerarkii maanta oo dhacay oo kale. hase ahaatee Ismaaciil Oronjo, afhayeenka dowladda, ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badan waxyeello uga soo gaari jirtay ee kooxda al-shabaab ka geysan jirtay magaalada Muqdisho ay soo yaraadaan. dowladda Soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga taqaluso weeraradii argagixisada gaadiidka walxaa qarxa laga soo buuxiyey u adeegsi jireen magaalada Muqdisho. waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyo al-shabaab intay soo geliyaan ay dadka ku waxyeelayaan. taas hadda markii lagu gudbay ayay farsamadan kala keeneen. waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fejignaan ayadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqaynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku dhiiradeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dhagarqabayaasha al-shabaab ee qaba inay waxyeello u geystaan. taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Ismaaciil Cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah. marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah, isla markaasna marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyadeeda ay qaado qof qaado, ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd booliiska. marka kooxda al-shabaabna waxaa looga rayn karaa oo la isaga celin karaa waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraankii ayaa moodaa in xoogaa maaragtay hay-addii nabad sugidda ay aada uga gaabisay oo aanay jirin wax xuraan ah iyo wax dabagal ah oo raggan lagu sameeyo si looga hortago qolalka noocan oo kale ay maaragtay ay maleegayaan maalin walba. ururka al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka SYL, waxaana ay horay u weerareen hoteelkan 2 jeer. mahadsanid maxamed. warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan.